hay-adda naaf ee bixiso lacagaha kaalmada iyo sidoo kale ceyrta ayaa lagu soo waramayaa in ay kordhisay lacagta boqolkiiba 21 marka loo eego sanadihii hore. Laga soo bilaabo 2023 ayaa lagu soo waramayaa in 166,000 oo qof iyo 400 ay ka faa'iideysteen oo ay heleen lacaga ay bixisay hay-adda naaf ee kaalmada iyo ceyrta bixiso, taa oo gaarayso 11.9 bilyan oo lacagta karoonka ah sanadkii 2024. Sida laga soo xigtay hay-adda tirkoobka dadweynaha SSB ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in sanadkii tagay ee 2024 dad gaarayo ilaa 14,000 oo qof kuwa oo u baahan kaalmada marka loo eego 2023 oo ah sanadkii kasii horeeyay. Waxayna taa ka dhigan tahay in dadka u baahan ceyrta ama kaalmada dhaqaale ee ay bixiso hay-adda naaf ay korodhay sanadkii tagay ilaa 9% marka loo eego sanadihii ka horeeyay. Lacagahan ay bixiso hay-addan ayaa lagu soo waramayaa in ay korodhay 21% marka loo eego sanadihii hore. Hayeeshee laga soo bilaabo 2022 ayaa lagu soo waramayaa in tirada dadka u baahan kaalmada ama lacagaha ceyrta ay kusii kordhayeen si isdaba joog ah guud ahaan dalka Norway. Waxayna khubaradu sababta arrimahaasi ay u saarinayaan qaxootiga iyo sidoo kale sicir bararka ka jira guud ahaan dalka Norway iyo maciishada oo aad u sii qaaliyoobaysa. Halka ay wararka kuwooda ugu door karaan idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.